Soomaaliya weligeed waa jiri jirtay Soomaaliya waagii hore qofka Soomaaliga ah wuxuu ku dhaadan jiray Soomaalinimo qarannimo lagu dhaadan jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegaya Puntland bari waxa loo dabaaldegaya Somaliland galmudug baa loo dabaaldegaya Jubbaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dawladnimada iyo qarannimadii Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka cali sabiix ka yimaado Djibouti agteeda iyo ka Siyoolo ka yimaado iyo ka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamar weyna ku dhashay xuquuqaha wuxuu kaliyo ka xigay waxay ahayd guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd federalismku wuxuu ina geeliyay ummadii ciriiri hatta dhaqaalihii iyo baabi'iyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooda lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysaa boosaaso alaabta boosaaso laga keeno ilaa qolo kastoo dawlad sheegatay waa inay cashuur rays garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalaha iyo ummadii Soomaalida halkaas la geliyay meel kasto waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiiro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaasoo iskuul Soomaalida biyo la'aan baa laysay ceelal bay u qodi lahaayeen wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax allaale wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax allaale wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay magac federaal iyo soo galaa waxay ahayd waagii gumaysiga wadanka haystay gobolada Soomaaliya kamida uu Talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku day inuu ku qanciyo in Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraaddeed say xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillah dadkii Soomaalida markaa hogaaminayay gaashaanka u daruureen halka kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabi'inayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xigta uun dawladii Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadowba soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo dawlad goboleedya bedelay barina waxa ku xigto ogaada dawlad goboleedku wadankay rabtay ku beeri kartaa ha baciidsanina arrinta